Khaliifkii muuminiinta xilligii boqortooyadii Cabbaasiyiinta Haaruun al-Rashiid iyo ilaaladiisa oo wareegaya cidhifyada magaalada Baqdaad ayaa waxay arkeen wiil yar oo geed hoostii qur-aanku akhrinaya. Waxay la fajiceen ama la yaabeen codka quruxda badan ee wiilka yar iyo sida fiican ee uu akhrinayo. Cabbaar markii ay dhegaysteen ayaa uu Haaruun u tegey, diinaar dahabana waa uu siiyey. Wiilkii oo ahaa mid aad u garaad badan ayaa iska diiday diinaarkii. Haaruun baa weydiiyey sababta uu diiday diinaarka. Wiilkii yaraa waxa uu ku jawaabay, hooyaday way qabsanaysaa haddii ay diinaarka igu aragto oo waxay weydiinaysaa meesha aan ka keenay. Haaruun baa yidhi, ku qabsan mayse waxaad ku tidhaahdaa khaliifkii Haaruun ayaa i siiyey. Wiilkii yaraa ayaa yidhi, oo hooyaday miyay rumaysanaysaa haddii aan idhaah khaliifkii baan is aragnay oo diinaar keliya ayaa uu i siiyey? Ilama aha inay rumaysan doonto hadalkaa, waayo waxay ii sheegtay hooyaday in khaliifku deeqsi yahay, cidda uu wax siinayana si fiican ugu xantoobiyo. Haaruun al-Rashiid oo fahmay wiilka yar baa inta uu qoslay waxa uu u dhiibay kiish dahab ah iyo weliba faras. Wiilkii yaraa sidaas ayaa uu garaadkiisii uga ciilbaxay. Dulucda sheekadan aan ka qaadanayna waxaa weeyaan in marar badan aad u baahan tahay inaad adeegsato garaadkaaga. Waad u jeedaan wiilkaa yari waxa uu ku helay garaadkiisii uu adeegsaday faras iyo weliba hanti badan oo uu siiyey khaliifkii waagaasi Haaruun al-Rashiid. Intaas baynu ku qabanaynaa.